الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله waxa aynu niri aynu ka hadalna mawduucan labaad ama muxaadaradii labaad oo lahaa tii xalay waxay ahayd extra ama dheeraad dhalinyarada loogu talagalay laakiin midda ii muuqata waxay ahayd baahida in la wada qabo dhalinyaro iyo waayeelba marka way wanaagsaneed oo waalidka naftooda inay joogaan oo baahida caruurta ay dhageystaan waa fiicnay intaanan hooyada wanaagsan ka hadlinin aabaha naftiisa waayo hooyo wanaagsan la heli maayo haddaan aabbo wanaagsan la helinin yacni wax walba waxay leeyihiin qiyaaday leeyihiin hooyada wanaagsan iskama samaysmi karto haddaan aabbo wanaagsan aanu jirinin marka aabbanimada saalixa marka horeeto xoogaa aan ka soo niraahno iyadoo labadooduba aanay kala hari karinin dariiqa lagu gaari karo hooyanimada saalixa ah iyo dariiqa lagu gaari karo aabaha saalixa lagu gaari karo marka horeeto waxaa loo baahan si hooyadu saalix u noqoto aabuhu inuu wanaagsan yahay qofka aabanimada u suubada ee inuu hadhow aaban noqdo oo uu mas'uul ka noqdo xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo dadkii la xiriiray inuu mas'uulka ka noqdo la rabo waxaa loo baahan yahay dhowr arrimood in laga helo kow inuu ninkaasi u laliyan yahay ama u diyaarsan yahay inaanu dhibinin xaaskiisa dhibkaasi ha ahaado mid afka ah ama mid adinka ha ahaado ama mid dhaqaale ha ahaado ama mid shucuurka iyo dareenka ha ahaado waxaa loo baahan yahay aabbaha wanaagsani inaanu geysanin dhib inaanu geysanin maxaa yeelay oo sidaa loo leeyahay gabadha uu guursanayahay waa muslim ilmahan uu gacanta ku hayaana waa muslimiin weeye rasuulkuna waa diiday qofka muslimka ah inuu qof kale muslimka dhibo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi wa rasuulka alayhi salaatu wassalaam xadiis saxiix almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi haddii marka ninkii aanay gabadhii ka nabadgelin gacantiisii afkiisana ka nabadgelinin de muslimnimadii marka xagee taala muslimnimo saalix oo wanaagsan meesha ma taalo weey marka kowda ugu horeysa waxa weeye caruurtii baan ka nabadgelaynin xaaskii hadaanay ka nabadgelinin qaraabadii kalena ka nabadgelin muslimiinta kalena ka nabadgeli maayaan marka qofkaas bal horta ninka u soo badow aabba inaad noqoto ama zawj inaad noqoto bal horta horeeto xuquuqda laazimka ah shariicadu ay xadeeday marka hore ha ka bixin waa taa weeyaan wadaad ahaaw wadaad ha ahaanin nin daaweyn ahaaw nin da'yar ahaaw midkaa doonta ahaaw waxaa kaleeto ka mida maalan inaanu ku samaynin ciriiri iyo shiddo fara badan